Habeen ka mid ah bishii Maarso 2016, laba saaxiib ayaa fadhiyay guri ku yaala magaalada Lunel ee dalkaasi Faransiiska. Waxay daawanayeen barnaamij ka hadlaya dambiyo dhab ah, laakiin waxa ay daawanayeen ma ahayn wax caadi ah. Waxay si toos ah u taabanaysay nolol qof dhab ah oo meesha ka maqan. Intii ay daawanayeen, mid ka mid ah saaxiibada ayaa si lama filaan ah u istaagay. Wuxuu bilaabay inuu si wareer ah u socdo, isagoo u muuqday qof maskax ahaan culays saaran yahay. Markii la weydiiyey waxa ku dhacay, jawaabta uu bixiyey waxay furtay albaab u horseeday sir aad u weyn, sir la xiriirta qof la waayay, iyo nidaam baaritaan oo hadhow su'aalo badan dhalin doona nolosha qof bini'aadam ah. Badri wuxuu ahaa nin 49 jir ah oo ku noolaa Faransiiska. Wuxuu ka shaqaynayay isbitaal, wuxuuna lahaa nolol u muuqata mid caadi ah dibadda, laakiin gudaha noloshiisa wuxuu la tacaalayay balwad cabitaan. Wuxuu galay qamar burburiyay dhaqaalihiisa oo dhan. Wuxuu lumiyay xiriirka qoyskiisa. Qof walba wuu qaldi karaa, taasi waa xaqiiqo. Laakiin waxa muhiimka waa xitaa qof qalad sameeya weli wuxuu leeyahay xuquuq bini'aadanimo. Xuquuqahaasi waxaa ka mid ah xaqa nolosha, xaqa badbaadada, xaqa in si sharci ah loola dhaqmo qofkaasi. Qoys burburay natiijo qaladaad. Badri wuxuu lumiyay xaaskiisa, xiriirka gabadhiisa, kalsoonidii bulshada, laakiin wuxuu weli isku dayay inuu dib u dhiso noloshiisa. Tani waa qayb muhiim ah oo bini'aadanimada ah. Qof walba wuxuu xaq u leeyahay fursad labaad. Maalintii ugu dambeysay 23 Juun 2014, Badri wuxuu u socday kulan uu la lahaa haweeney la yiraahdo Audrey. Waxay ahayd maalin uu rajeynayay inuu dib u bilaabo xiriir, inuu la kulmo gabadhiisa bandhigeeda. Wax kasta waxay u muuqdeen caadi, laakiin caadi ma sii ahaan. Lumitaanka xadgudubka xuquuqda asaasiga ah. Habeenkaasi Badri wuu lumay. Ma uusan u soo laaban gurigiisa, shaqadiisa, ama noloshiisa caadiga ahayd. Tani waa meesha ugu muhiimsan ee kiiskan. Marka qof la waayo si qarsoodi ah, waa jebin toos ah oo xuquuqda asaasiga ah. Qoyska Badri ma garanayn halka uu ku sugan yahay. Waxay ku jireen cabsi joogto ah. Waxay la kulmeen xanuun nafsi ah. Xuquuqda qoyska inay ogaadaan xaaladda qofkooda, in dawladdu si dhab ah u baarto. Baaritaanka cadaalad raadis ah. Booliisku waxay bilaabeen baaritaan, laakiin waxay la kulmeen xog yar, markhaatiyo iskhilaafsan, iyo tuhmayaal caddayn buuxda lahayn. Halkani waa muhiim. Xuquuqda cadaaladda. Taas macnaheedu waa in baaritaan cadaalad ah la sameeyo, in qofna aan la eedeyn caddayn la'aan, in runta la raadiyo si xirfad leh. Helitaanka meydka, xaqiiqo murugo leh. Muddo kadib, meydkii Badri waxaa laga helay god ku yaala buur. Wuxuu ahaa mid la toogtay kadibna la gubay. Tani waa jebin culus oo xuquuqda aadanaha ah. Xaqa nolosha waa laga qaaday. Xaqa karaamada bini'aadanimada. Xitaa dhimashada kadib waa la ixtiraamaa. Dil noocan ah wuxuu muujinayaa rabshad qorshaysan iyo burburin karaamada qofka. Xaqiiqda dambiga. Baaritaankani ugu dambeyn wuxuu gaadhay natiijo. Remy Shane ayaa ahaa dilaaga sababtoo ah argoosi la xiriira xiriir hore xaaskiisa iyo Badri dhex maray. Remy wuxuu qorsheeyay inuu ka arguto isagoo adeegsanaya Audrey si uu Badri u soo jiito. Audrey ma aysan ogeyn qorshaha dhabta ah. Waxaa lagu qiyaameeyay, lagu qasbay, laguna cabsi geliyay. Markii ay ogaatay xaqiiqda, waxay ahayd goor dambe. Nolosheeda ayaa halis gashay. Tani waxay taabanaysaa xuquuqda ka hortagga cabsigelinta iyo qasabka. Xuquuqda in qof aan lagu qasbin fal dambiyeed. Cadaaladda ugu dambeysa. Ugu dambeyn, Remy asiga wuxuu ahaa dilaaga. Sidaas darteed waxaa lagu xukumay 30 sano oo xabsi ah. Audrey maadaama ay ka qayb qaadatay
qayb qaadashana ma la dhihi karo oo lagu qiyaameeyey, ayadana waxaa lagu qasbay 12 sano oo xabsi ah. Tani waa nidaamka cadaaladda, ciqaab, ilaalinta bulshada iyo isku day lagu soo celinayo kala dambeyn. Laakiin su'aasha weyn waxay tahay, ma soo celin kartaa nolosha qof la dilay? Jawaabtu waa maya. Qisadani ma aha keliya sheeko, dambiyo waa cashir bini'aadanimo ah. Qof walba xitaa qalad sameeya wuxuu leeyahay xuquuq. Argoosiga wuxuu burburiyaa nolol badan, cabsi iyo khiyaano waxay keeni karaan musiibo. Cadaaladdu waa muhiim, laakiin mar walba ma soo celiso wixii lumay. Ugu dambeyn, xuquuqda aadanaha ma aha fikrad keliya, waa difaaca nolosha, karaamada iyo mustaqbalka dadka. Marka la jabiyo xuquuqdaasi, bulshada oo dhan ayaa dhaawacanta. Muuqaalkeena maanta intaas